runtii waa munaasabad muhiim ah oo islaahay waxay hore inaan u qabanno waana arrin loo baahan yahay inaynu ogaano xaaladda ardayda ku sugan yihiin gaar ahaan ardayda qabta baahiyaha gaarka qaba waayo baahiyaha gaarku waa wax inta badan bulsho walba ka jira gaar ahaan ardayda qiyaas ahaan markii la eego ardayda u baahan in si gooni ah loo ogaadana waxa lagu tilmaamaa 20% qiyaas ahaan inay gaarayaan 20% tayar ma aha marka tiradaas inaynu fursadii waxbarashada siino inaynu u sahalo qaab wax ku baran karaan waa mas'uuliyadna saaran bulshahan iyo dawlad ahaanba marka waan bogaadinayaa mustaqbal special clinic dadaalkan ay sameeyeen oo runtii ay ka muuqanayso lahaansho iyo wadaniyad ilaahay ajra ka siiyo annaguna waan ku bogaadinaynaa waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin xafiis ahaan kulley dadaalo way jiraan noocan oo kala ah oo ardayda baahida gaarka ah qabta lagaga warhayo deegaankii la 61 xarumood oo la dhaho xarumaha isku dhafka adeega oo macnaheedu yahay in ardayda baahida gaarka qabta iyo ardayda kale wax la baro oo kuwan baahida gaarka qaba aan la takoorin ardayda kale wax la baran karaan tashiilaadka u baahan la siiyo oo ka jira ilaa 4500 arday gaaraysan way ka faa'iideysan walow adeega aanan dhihi karin uu dhameystiran yahay laakiin waa bilow wanaagsan dadaalkan maanta ay wado mustaqbal special clinic waxaan islaahay wuxuu sii xoojin doonaa inaynu ogaano ardayda xagga araga u baahan inaynu si goona u eegno marka waxaan leeyahay waa dadaal wanaagsan kullay markii la baaro oo natiijada la ogaadana waxay noqonaysaa mas'uuliyad bayna fuuli doonta mas'uuliyadda nafsigeeda waan ka wada hadlaynaa qaabkeena wax leenaynaa maanta farxad weyn ah inaan ka soo qayb galo taafurkan laga furayo iskuulkan Axmed Gurey ee tabarucaadka lagu tala galay in lagu baaro ardayda dugsiga hoose dhexe ee maamulka magaalada Jigjiga baaritaankan noqon doona indhaha eegina doono ardayda meesha fog wax ka aragta kuwa meesha dhow wax ka arka si guud baahiyaha ka jira qaybta aragtida kuwa waxa laga yaabaa ama ilmuhu soo kalaaskii ku jira inuu aragtidiisa ina fiicneen ama macallinkii wuxuu dhigayo una si fiican ba warkeen marka xaruntan mustaqbal oo takhasuskeedu yahay indhaha ayaa maanta laga bilaabo maamulka magaalada Jigjiga iskuulada kala duwan ee ku yaala hawshaas si tabarucaad uga qaban doonta hawsha marka la dhameystiro ka bacdi waxa soo bixi doona in ardayda qaarkood aragtidooda ay liidataba way dhici karta ardaygii waxa laga yaabaa dharkiisu uu qurux badan yahay uu caafimaad qaba uu soo toosaya inay dhibba ku tahay aragtidu taa marka waxay keeni doontaa marka hawshaas soo baxdo annagoo kaashanayna xafiiska caafimaadka heer deegaan xafiiska waxbarashada iyo si guud xukuumadda in ardayda wixii loo qaban karo dib looga qabto waana laga maarmaan ardayda qaarkood waxa laga yaabaa inay u baahdaan aragtidii matana ay class ama mastaradii la xidhnay wax lagu akhrinay u baahdaan ma dhici karta ardayda qaarkood oo kale waxa laga yaabaa inay dhacdaba inay refer loo sameeyo meel kale ay u baahdaan dhaqaatiir kale marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xarunta mustaqbal special clinic oo hawshan si tabarucaad ku fulin doonta magaalada Jigjiga markay ka dhamaatana waxaan rajaynaynaa inay gobolada iyo deegaan kale u gudbaan ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim dagaara media waa saaxiibka dadweynaha